والله مصيحا فرحة ولا سيحة واي. xalay indhaha iskuma geyn يا فرحة ولا سيحة واي. muqdisho xalay ku yitay muddo 12 sano kadib bal ka waran hurdadaada xalay والله مصيحا فرحة ولا سيحة واي. xalay indhaha iskuma geyn يا فرحة ولا سيحة واي iyo ما شاء الله cimilada iyo damaashaadkii aan ku jiray. laakiin waxay ila tahay waqti qurux badan ee waqti la rabay inaan imaadano isku soo aadiyay. waayahay marka dib u eegtid xalay maxaa ku tilmaami kartaa waqtiga xalay ahaa wallahi waqtiga xalay iyo shalayba waxaa ogaaday inaan noqday qof guuleystay soo markaas ogaaday guusheedii waxaas waxaan ku faraxsanahay aad iyo aad reer muqdisho ay soo dhaweeyeen ku maadsanyiin waayahay saakay waxaad ku sugan tahay isbitaalka Madiina isbitaal Madiina maxaad ka soo doontay xaggaaga taariikh noocee uu kugu leeyahay والله حقيقة تاريخ وين وكلية وإسبيتال مدن إن أمهات عليو شغالة هذا إيو لخاطير تبوا بينت حلقي لوات نتدو أغسطو يعني وحي هذا جوبت دق عافمد لي في دي حلقاس يعني زاد ولا وحنا وحبضنا لي خبطي ما شاء الله هدي أهل دك عافمد كإمرجنسي أي وحياواس سومر كاميرا إلى وكر معهن هذا وحا أوصل تجي بلا مكلا oo ay isdhihi karo wax ka weyn jiri karay soo markaa waxa jecelaystay oo go'aansaday meesh uu horeyso ee asoo booqanay inay meeshi yani gargaar caafimaad la iifiday isbitaal Madiina inay ahaato soo sababtaas maanta imaaday xasuus weyn ay u leedahay inta noolaan waa xusi doonaa sanad walba 27 August waxa isku day doonaa inaan soo booqdo insha Allah dhaqaatiirta caafimaadka insha Allah u mahad celiyo mar kastaba waayahay xasuus noocee ah baa si gaar ah kugu leeyahay isbitaalkan والله سيجار وحي ليه وحق هاي قفك تاريخ القرآني history أهان مهمة هل كانوا إمادنا يعني إن يعني ما أهنا عادي documentary وحاسة كدوه so قاب كستو يوين الشخص والبيوين وحاجة على إن نسكح السمر كسته so إن نحسه وأن إلوين وأن أمهد إلى إسبيتال المدينة أساس درت هذا وما هذا كان مدام أي كم مدة بتكبت بادين ولا شيء markii isbitaal Madiina lagu keenay maalinkii lagu keenay xaalad nooc ku sugnayd ma shay kartaa والله حالتي markaas waa darneed يعني saahay moogeen dabcan يعني miirkay waa joogay laakiin dareen oo caadi wax ku cabir karmi jirin ana aad u dhibaataysna waayahay alxamdulillah dhibaatadii maanta waa ka soo qabatay alxamdulillah dabcan isbitaalka markii lagu keenay dhaqaatiira kula tacaalaysay ku garab taagneed miir ahaan ma xasuusan kartaa dhaqaatiirtii markaas garabkaaga ahayd والله وحسوستا dhaqaatiir badan way imaadeen iyo dad nurses badan waxa ka xasuustaa Dr. Maxamed Yusuf oo noo la taliyay inaan dibadda laga qaado oo kale macna dalka wax laga qaban karin oo dibadda laga qaado lacal hadii lacal wax naga fiican yihiin oo kale taladaas oo nasiyay sababtaas aan ku go'aansanay inaan dalka dibadiisa ugu baxno caafimaad ahaan caafimaadkaaga soo ahaa markii suuxi laga qaaday isbitaalkan maalintaas oo dhan waa nijabsanaa horta markii la iisi dhahayna yani isbaan korka wax ka isbaan korka xitaa markaas si fiican buu fahansaneen soo socodkaaga weesi waxyaabahaas markii la dhahayna shaqo ku jiro markaas aqooste sax markaas nijabay maleeshiya waa la qaaday familka waa iska la socod maana ni ahaan muuhin xagga markii tagay sidoo kale waa aadi iska noolaalay ilaa ugu dambeyntii aan ilaa nolosha fahansiiyay alxamdulillah oo wax badan xagga markii aad tagay aan arkay dad element ah oo horumar gaaray dad aan ku day karo sidoo oo kale oo dhaqaatiir ah oo xafiisyo fadhiyaan oo wax walba qabsan karaan marka arkay waxa isdahay dadkan waxay qabsan karaan way qabsan kartaa nolosha dhinaca ka gal waxa qaban kartid qabso soo sababtaas aan ilaa ay hadda go'aankii uu ku yahay wax walba inaa qabsan karo way Malaysia xaaladii ah ka filanaysay caafimaad ahaan inaad ka helaysid ma ka heshay boqolkiiba hay ya boqolkiiba way kala adagtahay caafimaadka yani dhaqaatiirtana mar waxay sheegeen marbo yani waxa loo tusaalahan laga dhigaa qofka si daran oo kale waxa la iigiyay oo leel kulan siiyay dad aan iig daran oo kaliya madax laga dhaqaajinay aan waarona gacmaha iyo transfer garay kari awooda laha laakiin dad oo waxa jirba madax xitaa loo celcelinay oo iyaga isbaan koodka wax ka gaaray soo marka tusaal badan ay tuseen dad badan ay tuseen ay bareen yani dhiirgelinay taas soo waxyaabo badan oo nolosheeda ay ka bedeshay midaas ahayd
so dabcan boqolkii boqol waxaa dhihi karaa oo ku faa'iiday caafimaadka dadka meesha Malaysia dabcan hadda waa ka timid ma u noqonaysaa mise fashilid oo noqonaha way rajan nooce ah ka qabtaa inaad ku istaagtid lugahaaga caafimaadkaaga dib weys والله markii baahi badan u qabo waxaas hadda baahidaas ma hayso waxa la mid ah qof caadi socdo waxaan gaari karin oo kale wal isoo qabtaa wax kasto yani baahi kasto la igtiray walaalo i saaxiibo ah waxaas ilo siin soo marka wax kale hadda oo wax kale hadda iga maqan jiro alxamdulillah wama santahay asad warjinayna in caafimaadkaaga meesha aad ka rabtid aad ka gaartid insha Allah muqdisho aad dabcan hadda ku sugan tahay waxaan ka soo jeedaa marko oo dhulkaaga meesha ku dhalatay joogi jirtay ku noolaa jirtay ma laga yaabaa in aad tagtid maadaama masaafo ahaan ay laakiin 12 sano ka hor marka inta ka tagay noo ambalaas saaran oo Cabdullaahi dhabarkii saaray dadka hadashan bala Cabdullaahi shal anoo dhaawacan iqaaday haddana waa kana anoo bulshadadan ijeclihiin ay soo celisay baraada waxa ku leeyahay maasan tahay inta ka horeyso waxa halkaan aad iyo aad u mahadcelinaa dhammaan mas'uuliyiinta dawladda iyo team 27 dhammaan waqtigoodii soo horay soo dhaweynteeda waxaan filin ayaa dhacay oo waxa maqli jiray yani qofka yani waxa tabaysa markuu ka tago oo kale ama yani waxa tahay waxaad ogaanaysaa markii meel aad tagto oo kale ama waxyaabahaas oo kale maanta waxa ogaaday in Soomaalida soo dhaweyntoodu waa suuriyadooda waana dhaqan soo jireen ah oo ay ku suntan yihiin wixii nool adduunyada waa la isku soo noqon dhalinyaradani waxay caleemo qoyan u luxayaan walaalkoodii muddada badan ka maqnaa caasimaduna waa mid si diiran ugu diyaargarooday Asad Xaajiyow maalmuhu waa kuwo kala duwan markii dalka laga dhoofiyey xaaladiisa caafimaad oo liidata iyo kolka soo laabashadiisu waa laba isbarbar yaala asadkii shalay maaha wuxuu ka dhisan yahay dhanka maalka mooraalka iyo magaca oo waa midkan malaayiinku ku dhawaaqayaan maalmo badan ayaa laga sugayay geyigiisa balse wuxuu waqtigu iskuraba isagoo qosdaya waa ka dhex lugeynaya Muqdisho abshir ayay tahay la kulankiisu ninka ugu saaxiibka badan Soomaalida isticmaasha barta YouTube-ka halkan waa lagu dhan yahay oo looma kala hadhin madax iyo minjaba waxa ugu badan ee ay sheedu qabanaysaa waa dhalinyarada ugu magaca dheer baraha bulshada ee Soomaalida waxaanu leenahay waa lagu sugayo lagu saadaalinaye marka hore salaan sharaf rabbina sayma ka hay